madax bannaan rasmi ah waxa ugu horeysay 26 December 2025 war degdega waxa isa soo taraya cabsida sheegaysa in Mareykanka uu isticmaalo dekada iyo garoonka berbera ee Somaliland si loo duqeeyo Xuutiyiinta Yemen iyo sidoo kale Iiraaniyiintu saacadii la soo dhaafay cabsida ayaa isa soo taraysa iyadoo madbacadda Fox News ay daabacday in xaaladdu ay sii xumaan karto saacad kasta isbedeli karto kadib markii kor u sii kacay xiriirka u dhaxeeya Somaliland iyo Mareykanka cabsi xoogan ayaa isa soo taraysa Iiraan ayaa sidoo kale walaac xoogan ay ka muujisay in Mareykanka uu isticmaalo dekada iyo madaarka ee berbera si loo duqeeyo wadankooda iyo Xuutiyiinta cabsi xoogan cabsidan ayaa saameyn ku yeelan karta xaaladda bariga dhexe maadaama Somaliland ay saameyn mugle ay ku leedahay Baabul Mandab iyo Marinka Cadan iyadoona la sheegay in xaaladdu ay sii xumaan karto haddii Mareykanka uu isticmaalo halkaasi waxaase la sheegayaa in Mareykanka markaan uu xiisinayo oo xiise zaid u qabo dekada berbera iyo si la mid ah madaarka halka si uu u duqeeyo Iiraaniyiintu iyo dhinaca kale Xuutiyiintu maadaama saacadii la soo dhaafay Iiraan ay si toos ah u beegsatay mid ka mid ah saldhigyada ugu muhiimsan ee Mareykanka oo ku tiilaya bariga dhexe xaaladdu sayay faraha ka sii baxday lama oga halka ay wax gaari doontaa laakiin Somaliland waxay si rasmi ah u xaqiijisay oo Fox News ay u sheegtay inay qaadi doonaan tallaabo cad oo ay ku sheegeen in lagu weerar doono Iiraan saldhigga berbera iyo madaarka baa lagu wareejin doono ee Mareykanka si tallaabooyin cad ay ugu qaadaan xaaladdu sayay faraha ka sii baxday iyadoo Somaliland ay sheegtay inay garab taagan tahay maanta oo kale Mareykanka iyo Israel sidoo kalena muwaadiniinta Somaliland waxay ugu baaqday inay ka shaqeeyaan amniga si loo hormariyo isla markaana loo qaado duulaano culus sida ay daabacday Fox News cabsi xoogan ayaa laga qabaa in saldhigga berbera uu isticmaalo Mareykanka si uu u duqeeyo Xuutiyiinta Yemen iyo Iiraaniyiintu saacadii la soo dhaafay waxaase baraha bulshada iyo guud ahaan caalamka wararka sheegaya nooca in la adeegsan doono dekada berbera ayaa isa soo taraya iyadoo cabsi xoogan laga qabo in Mareykanka uu si toos ah u isticmaalo dekada iyo si la mid ah garoonka berbera ee Somaliland halka uu kaga duuli doono si uu u duqeeyo Iiraan iyo Xuutiyiinta Yemen xaaladdu bariga dhexe ayaa sii cakirmaysa isla markaana la soo tabinayay in dhinaca ay suuragal ay tahay maadaama Fox News ay daabacday arrinkani dhinaca kale Iiraan ayaa walaac xoogan ay ka muujisay suuragalnimada in Mareykanka uu isticmaalo dekada berbera iyo madaarkeeda si halka ay duulaanadiisa ugu sii wato maadaama Somaliland ay muhiimad gaar ah u leedahay istaraatiijiyad ahaan marka loo eego iyadoo Baabul Mandab iyo si la mid ah Marinka gacanka cadmeedba ay saameyn xoog leh ay ku yeelan karto cabsi la qabo ayay ahayd markii hore in halka saldhigga ay maamulato Israel laakiin imika Mareykanka ayaa la sheegay in qorshe damac uu kaga jiro dowladda Mareykanka ayaa horey ay u aaminsaneed fikra Soomaali weyn iyo sidoo kale in Soomaaliya ay tahay hal qaran oo quda laakiin saacadii la soo dhaafay waxaa la sheegay in Mareykanka oo qorsheenayo haddii suuragal ay noqoto sidoo kalena istaraatiijiyadda dagaal ee bariga dhexe Iiraan ay ku wajahayso haddii ay isbedesho inkastoo Mareykanka oo horey u aaminsanaa midnimada qaran ee Soomaaliya laakiin si gaar ah wuxuu wada shaqeyn u lahaa Somaliland gaar ahaan arrimaha amniga ayuu kala shaqeynayay Somaliland waxaase la sheegayaa in suuragal ay tahay in dekada halka la adeegsado soo loo duqeeyo Iiraaniyiintu iyo Xuutiyiinta Yemen Iiraan ayaa walaac ka muujisay arrinkaasi sidoo kalena Iiraan horey waxay u cadeysay mowqifkeeda iyadoona ay sheegtay in Somaliland ay ka mid tahay Soomaaliya ay marnaba aqbali doonin in dhul ka mid ah Soomaaliyana faragelin shisheeye lagu sameeyo waxa farxad weyn ah inaan maanta gobolka Gabiley caasimadiisa Gabiley aan kala qayb qaato farxadda ciida weyn islaamka ciida Carafa marka waxa maanta ay suurta galay maadaama aan gobol kasta tii kareynin inaan soo gaaro Gabiley gobolkii ugu horeeyay aan ciid kala qayb galana uu noqdo hadii la yiraahdo waxaan ilaahay ka baryayaa inuu acmaasheena saalixaan ay naga aqbalo xujeedii naga xajtayna xajkooda ka aqbalo dambi dhaafna ugu bedelo hadii la yiraahdo ducada ay noo soo duceeyeen ay naga aqbalo
waxaan si gaar ah waliba u salaamayaa culimada gobolka haddii alla yidhaahdo Somaliland the 35 jir weeye Somaliland ta cusub tii 60kiina waa 65 jir Somaliland madax bannaani rasmi ah waxa ugu horeysay 26 December 2025 Somaliland wuxuu noqday dal la ictiraafay oo dunidana maamuus ku leh siyaadada dawladooyinka la siiyana leh waxaan maqlayay madaxweynaha dalkaanu jaarka nahay ee Soomaaliya oo ciidda ka hadlay Somaliland oo calanka in la suro Qudus Somaliland yeeli mayno waxa la taas way ku dhaaftay meel gacmaha ka qabatay iyo meel aduga ka qabato midna ma joogto in hooraayo la oran jiray Burca ayaa waxa la yiri islaan hilib karsanayso kala cararo waa sax daba carartay markaa wuxuu yidhi kari ku dhaaf iyo barqo ku dhaafay markaa waxa leeyahay Xasan taasi way ku dhaaftay calanka tawxiidka li waa kaanu idin la baryeynay hadda tawxiidka yaalanaysaan waa kaanu idin lahayn aqoonsada madaxweyne Siinaaya wuxuu la bilaabay wada hadal Soomaaliya London buu kula bilaabay 10 sanadood buu socday wada hadalkii waxa natiijo ka soo baxay miyaa garanaysaa markaa dee calanku waa kii la baryay waxaan leeyahay Somaliland waxay ku filan tahay inay dalkeeda iyo dadkeedaba difaacdo General Nuxtaani wuxuu ictiraafka waa difaacayna marka shacbigu wuxuu diyaar u yahay waanu ku filan yahay shacbiga Somaliland inuu dawladnimadiisa dadkiisa iyo qarankiisa ba difaaco waxaan u sheegayaa Xasan iyo cidii uu helisaba haddii dawladda kale noo soo kaxaysataan Somaliland maanta kalimaha laakiin idinka waa ku filannahay inaan iska kiin difaacno shacbigayga waxaan ka codsanaya inay midnimadoodana ilaaliyaan nabadana ilaaliyaan cid kasta waynu ka adkaan karraa markaas Somaliland عندكم الدولانها سياسة دينا كم تشوفتين عيد كدوش لكن سياسة دينا كو حكا أنا قرن كيد الدفاع إلهي حكا برا يا إنه مدر خير قوي نصيه إلهي مدر خير قوي نصيه وضنا كولي غيب كبضرا إن بدني وعبار إلهي إن بدنا نصين كلام مدر خير قبه إن بدنا بين الدعاء سني ما أنت ومالي وين والإسلام كان كوين marka ilaahay waxa ka baryay inuu madax khayr qabay noo shubo dhamaan dalkana gaarsiiyo haddii la yiraahdo wixii inaga xanuunsanaya ilaahay ha caafiyo wadankana haynoo hagaajiyo nabadda haynoo xasiliyo midnimadeennana haynoo xoojiyo aad iyo aad baa mahadsantihiin